maku fikirtay curinta ganacsi ama mashruuc guuleysta oo dhaqaalihi hormarba ka samaysid. qormadan kooban waxaan kula wadaagi doonaa 3 talaabo oo aad ku bilaabi kartid ganacsi guuleysta, inagoo isla eegi doonaa qaabka aad u diyaarinaysid intaadan bilaabin ka hor. markaad diyaarisid sidii aad qorshe dhammaystiran ugu dejin lahayd, kadib sidii aad u daafur lahayd una soo gelin lahayd. waxaa mudan inaynu isla ogaano in dhammaan mashaariicda ganacsi ee la sameeyo aysan noqon kuwa guuleysta, balse daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 50% mashaariicda ganacsi ee cusub ee curdinka ah aysan gaarin 2 sano oo ay guuldareystaan, yacni fashilmaan. haddaba maxay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee aad qaadaysid si aad guul u gaartid fikirdaada ganacsi? tallaabada koobaad, ku samee daraasad suuqaad bartilmaamaysanaysid. waxaa laga yaabaa in badan ay fikirdaada ganacsi ka guuxaysa maskaxdaada. markaad go'aansatid inaad fulisid, waxa ugu horeeya samaynaysid waa inaad isla barbar dhigtid, dhinacna dhigtid fikirdaada waaqaca ka jira meesha aad ku nooshahay ama aad ku fulinaysid. isweydii ma leeyahay fikirkaaga ganacsi awood uu ku guuleysto, se intee la egyahay suurtagalnimada in fikirdaasi ay soo dhaweeyaan dadka aad tuhmaysid inay macaamiil ku noqdaan. waxaa muhiim ah in fikirda ganacsigaagu ay dabooleyso baahi markaasi taagan ama ay xalinayso dhibaato ay dadku wajahayaan. waxaa jira dhowr wado oo aad ku ogaan kartid awoodda fikirdaada ganacsi iyo baahida loo qabo. waxaa ka mid ah inaad tijaabisid suuqa oo aad keentid badeecad tijaabo ah, inaad weydiisid dadka ka agdhow sida saaxiibada iyo qoyskaaga, kadibna si guud oo dhowr qof oo aad isdhihi kartid ra'yi ayay kugu biirin karaan inaad weydiisid. su-aalaha ugu muhiimsan ee jawaabta kaaga baahan waxay kala yihiin: 1. suuqa ma u baahan yahay adeegaaga ama ganacsigaaga cusub? 2. yay yihiin macaamiishaad bartilmaamaysanaysid? ma ardayba, ma dadka dakhligoodu yarahayba, ma ganacsatada iyo wixii la mid ah? 3. ma jiraan shirkado kale oo soo gudbiya adeega aad damacsan tahay inaad suuqa keentid? 4. haddii ay jiraanna sidee ula tartami kartaa? su-aalahan iyo kuwo kale oo la mid ahba ayaa muhiim ah inaad jawaab u heshid intaadan qaadin tallaabada xigta ee aad ku hirgelinaysid mashruucaaga ganacsi. tallaabada labaad, deji qorshe shaqo. diyaarinta qorshe ganacsi waa tallaabada labaad ee aad maraysid si aad mashruuca ganacsi u bilowdid, maadaama aad u baahan tahay qorshe dejisan oo fikradda ka guuxisa maskaxdaada oo aad u bedeshid waaqaca midkaad dadka ka iibisid. qorshaha ganacsigaagu waa marxaladda ku hagi doonta ganacsigaaga, iskuna xiri doonta marxaladda koowaad ee bilowga ah oo ah marxaladda ugu adag, ilaa iyo marxaladda uu ka noqonayo mashruuca lugihiisa ku istaagaa oo aan adiga kugu tirsanayn. tallaabadan ayaa muhiim ah in ganacsi kasta oo curdin ah, yacni bilow ah, si u noqdo mashruuc guuleysta. ma jiro qaab gaar ah oo loo diyaariyo ama loo dejiyo qorshe kasta oo ganacsi ah, balse qof kasta wuxuu leeyahay qaab fikirkiisa gaarka ah ee uu aaminayo in mashruuciisa uu ku guuleysanayo. balse waxay ka saman yihiin waa inuu qofka xadidaa qaabka uu noqonayo adeegiisu, meelaha uu ka keensanayo, haddii uu badeeco iibinayo, wadooyinka uu marayo, si ugu dhigo mashruuciisa mid guuleysta iyo wixii la mid ah. tallaabada 3aad, qorshee qaabkaad u maalgelinaysid mashruucaaga. bilaabada ganacsi yar bilowgiisa hore uma baahna inaad ku maalgelisid lacag badan. taasi kama dhignaha inuusan wax lacagha kaaga baxaynin, balse waxaa jira masaariif ay muhiim tahay inaad marka hore qorshaha ku darsatid si aad u hirgelisid. adeegso warqad yar oo ku qoran masaariifta hordhac u ah ee aad u baahan tahay si aad u hirgelisid mashruucaagan. masaariiftan ayaa noqon karaa shaatiyada ganacsi ee aad ku bilaabaysid, qalabka aad ku shaqo bilaabaysid, samaynta sumcadda ganacsi, kirooyinka bilaha ah, iyo haddii ay jiraan shaqaale kula shaqayn doonaa. dhammaantood oo masaariif kaaga baahan inaad qorshaha ku darsatid si aad u bilowdid mashruuca ganacsi. markaad xisaabisid dhammaan masaariiftan, kadib wadarta lacageed ee ku soo baxda oo wadarta aad u baahanaysid si aad u hirgelisid mashruucaagan. haddaba maadaama aad hadda fikradda guud ka haysatid qarashaadka aad u baahan tahay si aad u bilowdid mashruucaaga, haddaba raadi meeshii aad ka keeni lahayd dhaqaalahaasi. waxay noqonaysaa mid aad jeebkaaga ka bixisid, bise wuxuu noqonayaa mid aad banki kasoo deyn qaadatid. adiga ayaa go'aaminayaa. intaasi ayuu ku geeyay muuqaalkeena maanta.